xoolaha ayaa ah laf-dhabarka kaliya ay leeyihiin Soomaalidu waxaana jirta xanuuno ku dhaca xoolaha ilaa haatan loo helin wax dawo ah saameyn ay ku yeesheen markaasi xoolo dhaqashada saameynta kiniinada la siiyo xoolaha iyo waliba dhibaatooyinka kale ay horseedeenba waxay noo faahfaahin doonaa isla markaasna khadka telefoonka kaga wareystay arrimahaas iyo arrimo kale Dr. Ibrahim Maxamed Kaahine Dr. Dhuxul oo isagu ku takhasusay arrimaha xoolaha soo dhaw marka koowaad Dr. Ibrahim waan dhawahay Ismail Maxamed aad iyo toona mahadsantahay bal waxaad ka warantaa kiniinada xoolaha la siiyo iyo waliba waxay sababi karaan Bismillahir Rahmanir Rahiim waxaynu ognahay xooluhu waa isha dhaqaalaha ay Soomaalidu leedahay iyagoo ugu jira kaalin muhiim ah dawooyinka dadkeenu caafimaadka dadka iyo caafimaadka xoolaha labadaba waxa iska fudud dadkeenu inay dawo iska soo iibsadaan laakiin adduunyada dad iyo xoolaba lama siiyo dawo aan dhakhtarku tii ama dhakhtarka markii la baaray xanuunka iyo waxa hay la ogaaday loogu talagalay la siinayo saxdahay dawada haddii qofitu dawo soo iibiyo xoolo iska siiyo wuxuu baal marayaa sharcigii iyo habkii daweynta noolaha ama xayawaanka ama xoolaha dhibaataysan waayo xooluhu wuxuu u baahan yahay dawada marka la siinayo meel ku habboon in laga siiyo sayidkii laga siinay ma afku qaadanaya ma irbad bayo wuxuu ka qaadanaya fiiga xididka kolba halkii laga siinay ma sprayo meel lagu buufinaya waxay u baahan tahay dawadaasi dosage intii la siinay inteeba xayawaanka ama neefka intii xoolaha la siinay marka sadawada halkii la dhigaya meel temperature-keeda ama heerkulkeedu caadi ah ma la dhigaya guriga dadkeenu meel bay dawada iska dhigaan kulul dawadii sharooboyinka kale ama kuwan kale caadiga oo loo baahnaa in meel fridge loo qabo oo lagu ilaaliyo meel banaanka bay dadku iska dhigaan taas oo dhibaato caafimaad dhow ku keenaysa xoolaha iyo in xayawaan dawadii tayadeedii hoos u dhacdo ama ay kala go'go'do oo kale sida sharooboyinka qaarkood marka dhibaato caafimaad bay u leedahay neefkii mustaqbalka dhow iyo ka fogba sababtoo ah wuxuu neefkii la qabsanayaa dawadii jirkii taas oo horseedaysa mararka dambe haddii dawo xad dhaaf fara badan neefka la siiyo hadhow mar labaad xanuunsado inaanu dawo yar ku bogsanayn oo resistant buu jirkiisa la sameeyaa dawadii arrinkaasi waa khalad fahan ama khalad daweyn treatment weeye ku dhacaya qofkii mulkiilaha marka waxa loo baahan yahay qofka mulkiilaha markuu neefkiisu xanuunsado isagoo inta suuqa iska tago dawo inaanu soo iibsan inuu la xiriiro cidii cilmigan baratay oo ah dhakhtar xoolaad halkuu ugu dhow yahay ama halkuu joogo waayay waad la socogtaa Dr. Ibrahim waxaa jirta dad iyagu miyiga xoolaha ku dhaqda isla markaa markay magaalada yimaadaan uu neef ka xanuunsanayo farmasiyada caadiga dadku wax ka iibsadaan intay tagaan kaniina ka qaada isla markaasina siiyo neefkii xanuunsanayay iyada saameyn caafimaad oo noocee ay ku yeelanaysaa saameyn caafimaad oo weyn bay neefka ku yeelanaysaa sababtoo ah qofku ma garanayo intii noolaha loogu talagalay ama xoolaha ama neefka loogu talagalay in la siiyo hadhowna saameynta ugu weyn waxa weeye laba in neefka horta ku sumoobaba oo dawada lafteeda sunaba dawada limit iyo xad baa loogu talagalay xoolaha in la siiyo xad ka badan haddii la siiyo dhibaato caafimaad oo qofkii xoolihii internal ama gudaha ka soo gaadhaysa jira markaas qaarkood beri hawdka aan marayaan tiim la soconay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan aragnay la siiyay albada sool hash dawadan caloosha oo sharoobaa lagu shubay in badan haraguba ka daatay oo maqaarkii sare haragga ka daatay marka dhibaatooyin caafimaad oo caadi u muuqda bay yeelan karaan iyo qaar marka dambe neefka ku soo kacdooma oo mar dambe neefku la kulmo sidoo inuu dawadii jirkiisii resistant ama la qabsi uu la sameeyo dabeedna hadhow neefkii marar dambe haddii la isla daweeyo uu daweysmi waayo in dawadii haddii neefku xanuunsado wax dhow la isla qasha ama muddo dhow la isla qasha inay dawadii jirkiisii ka bixi weydo ilaa waxa loo siiyay si aan xad lahayn waxa laga siiyay meel aan ku habboonayn waxa siiyay qofkii loogu talagalay inuu siiyo ahayd marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa wala ka dhalanay waayahay iyadii waxaa jirta bacda oo xooluhu aad u cunaan xoolaha magaalada iyo kuwa miyiga joogaaba isla markaasna way ku caalaan caafimaad ahaan iyo waliba markaasi fariintaad u diraysaa maxay tahay dadka iyagu bacda markay cunaan saliida ku shuba horta midda isweydiin leh bacuhu waxay dhibaato u leeyihiin dadka deegaanka bilicda iyo xoolaha bacuhu dhammaan dhibaatooyin kala duwan oo dhan kasta bay leeyihiin bulshada u leeyihiin
taasay tahay xoolaha haddaynu u nimaadno oo burcdii magaalooyinka way qarribayaan xoolihii oo kale waa kuwaasoo cuntooyinkii dadku markaa soo iibsadaan ay tuuraan ay meelaha ku tuuraan ama neefkii intay wax ugu ridaan meelaha dhigaan neefka hadduu dub hadhow u cuno dhibaato waxay ku sababaysaa mindhiciradii neefka hadhow inay isku marto neefkiisa dibiro oo kale ku dhacdo ama neefkii wax kale hadhow ku dhacaan oo aanu neefkii dibirada ama u dhintaba ama neefkii in waxba cuni kari waayo oo hadhow ilaa qalliin mindhicirada lagu sameeyo kale dhibaataas oo kale u keento qaarkoodna waxaynu aragnaa marka dambe neefku bacdii uu saxaroodaaba ama iyadoo kasoo jeeda ama ayaa la arkaa bacuhu markaa dhibaato caafimaad oo weyn ayay u leeyihiin xoolaha habka daweynta dadkeena qaarkood markay dhowr jeer dadku waa waxa weeye dhigmaal Soomaalidu way iswaraystaano neef baa ka xanuunsaday aad maxaad ku daweysay inagu maxaan kula macaamilnaa dadna saliid baa lagu shubaya saliidaasi hadhow inay sababtaa laga yaabaa aspiration pneumonia oo dadka qaarkood ay sanka qabtaan ama afka neefkii ama ay ku shubayaan saliidii dhibaato xanuun bay islahayn ka daweeyay caloosha hadhow waxa ku dhacaysa in neefkii uu sixdo oo saliidii ama sanka ama qaroorka ama qaybahan kale neefta ay cararto hadaanu dee uga dhiman baneef oo neefku qufac dabeedna muddo dheer ku waasho marka waxaasoo dhan waa dhibaato ay keenayso bacdu habka ugu dhow waxa weeyaan qofka hadduu arko in ridaas inay bac cuntay ama bac neefkaasi uu cunay oo cunto ku cunay in lala xiriiro dhakhtarka xanaanada xoolaha sidaan loogu daweeyo wixii tale dhakhtarku kolba soo jeedi waayahay bal xoolaha iyaguna lagu dhaqdo magaalada iyo kuwa miyiga lagu dhaqdaa maxay ku kala duwan yihiin baa la is odhan karayaa caafimaad ahaan waxaynu ognahay xaalaha miyiga jooga meesiyada kala duwan ee Soomaalidu dhaqatay aadka u dhaqataa waxa weeye ariga looda iyo geela inkastoo gamaankuba ay joogaan miyiga si aanay ku badnayn miyiga iyo magaaladu waxay ku kala duwan yihiin xoolaha miyiga jooga waxay helayaan hawo fresh waxay helayaan dhul furan oo obino ay iska ugaars iska day qaraabsi tagaan oo dhirta iska soo cunaan waxa la yahay wax dhibaato dhirtana waxay ka helayaan waxa la yahay wixii borotiin iyo wixii ay u baahnaayeen nafaqo ila geeda kala duwan bay soo daaqeen iyagoo ay doorteen laakiin kuwan magaaladu iyagu saama sidaamadna kuwa miyiga cadkoodii caanahoodu way ka macaan yihiin kuwa magaalada waanay ka halisiri haddaba kuwii magaalada haddaynu naadno kuwa magaalada waxaynu ognahay gacanta lagu hayaayo magaalada dhex joogaan waxay badanaa cunayaan waxyaabahan dadku cuntooyinka dadka caadiga dadkeenu isticmaalaan dabastada iyo bariiska meelaha dadku dibadda ku soo qubaan ama laxooda ay dib u cunayaan dhibaato caafimaad bay ka qaadaan ba inay dee qaarkood way qaar baa ku yaran naaxa oo ku wanaagsanaada marka dambe laakiin halis caafimaad bay ku jiraan in meelaha dadku cuntooyinka ay cunayaan inay wax u raacaan sida masaabiir hargeyso kala bari waxaan ku arkay neef rimas musbaar liqday oo jaacada guris la keenay marka dhibaato caafimaad hadhow neefkii in qalliin lagu sameeyo in hawl daataan uba dhiman ayay ku gelaysaa lo'doo kale iyaguna ku dhacdaa inay foreign things inay wax ku liqaan markay cuntooyinka cunayaan dadku ay siiyaan marka saasay ku kala duwan yihiin caafimaad ahaan ammaankoodii naftooda ahaan tii kale ee riskiga khatarta wadooyinka iyo waxaan miyiga waxaynu oonay gawaadhi fara badan ma jiraan cid ay ridu soo xadayso ama waxaan lahayn inay cunaysaa ama xooluhu ma jiraan laakiin magaalada dhibaatooyin badan baa ku haysto sidaa ay miyiga xor u yihiin magaalada xormaha waa hagaag daawadayaalkaasna waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Dhuux Dr. Ibrahim Dhuxul oo isagu ku takhasusay arrimaha xoolaha iyo waliba dhakhtar xoolaad ah aad baad u mahadsantahay Dr. oo waraysi gaar ah maanta nagu siinayay khadka telefoonka isagoo jooga Kampala anigoo wariye Super Galeyda ayaa waraysigana ka qaadayay intaynu iskugu imanno waraysigaasi xigana sidaas iyo amaana Allah